tusaale oo kale dadka faqriga ah waxay lacag ku qaataan waqtigooda ayaa loo qiimeeyaa laakiin muhiimka saas ma ahan maxay tahay maxaad kusoo kordhisay waqtigii faraha badnaa ama 8 saac lagu siiyey company-ga maxaa kusoo tusaale oo kale haddii lagu hal sano aad ka shaqaynaysay product wad kusoo kordhinayso productiga aad geysay suuqii productiga aan la iibsanin ama maciishadii aan la gadanin waxba ma soo kordhinayso cid aad wax ku kordhisay malahan company-gana waxba ma korin laakiin adigu lacag bisaad fiirsanaysaa dadka wax aqoonta leh ay raahday rijka ama qaniga ah waxay fiirsadaan waa natiijada company-ga maxaa ku soo kordhay lacagna sidaas ay ku qaataan kuma qaataan oo kaliya waqtiga sababtoo ah 20 saacadaad shaqaysay oo waxba aadan ku soo kordhin company-ga waxba ma aadan guuleysan qodobka labaad dadka faqriga ah waxay ku eedeeyaan ayaga problemkooda ay dadka kale ku eedeeyaan halka dadka taajiriinta ana ay dhibkooda iyo failure-ka ay qaataan ayaga ay accept gareeyaan ama bay waxayaan qofka faqriga wuxuu leeyahay hebel baa ka dambeeyay dawladda ka dambeysay society-ga waa dhaqaalihii dalka ayaa aad u xun waxaa dhacay disaster covid baa dhacay laakiin rich people ama dadka qaniga ah ma sameeyaan dadka qaniga waxay sameeyaan ayaga ayaa qaato qaladkii meesha ka dhacay haddaba taas waxay u suurgelinaysaa markii aad accept gareysid ama ba aqbashid qaladkaadii misteegaadii awood bay ku siinaysaa oo aad ku baratid kuna bedeshid qaladkii aad samaysay qodobka saddexaad dadka faqriga ah waxay diiradda saaraan sidii ay dhowr shilin u save gareyn lahaayeen halka dadka qaniga ana ay fiiriyaan maalgashiga 4 shilin ama $2-3 oo aad save gareysay waxba kuma soo kordhinayso haddaad 20 sano xataa ka dhigtid laakiin muhiimadda waxay tahay in aad maalgelis badan samaysid si lacag badan ay kuu soo gasho problemka saving-ka ma aha 4 xabee problemkaada waxay tahay lacagtii meeshaad ka heli lahayd income-kaadii baa yar income-kaada badi ama meesha dakhliga dhaqaale ka suga lambarka 4 dadka faqriga ah waxay iska dhigaan inay wax walba yaqaanaan halka dadka taajiriinta ana ay si continuous ama joogto ah wax u bartaan waxay isku dayaan dadka faqriga siyaasadda inay wax ka hayaan cilmiga inay wax og yihiin disaster wax walba laakiin dadka taajiriinta ahi waa dad wax dhageysto waa dad observe gareeyo ama qiimeeyo wax walba cusub way fiican yihiin sababtuna waxay tahay waa dad wax dhageysto si ay cilmi u helaan dhibaatada dadkan kale ay haysato dadka faqriga ah waxay isku dayayaan wax kasto inay warbixin ka ogaadaan wax walba dunida ka socdo wax kasto oo dhankooda ah inay wax hayaan taas oo aan wax soo kordhinaynin laakiin qofka rijka ama qaniga ah waa nin waqtigiisa fiirsanayo kali ah diyaar u ah inuu wax barto qaladaadkiisa horena wax ka barto ninkan wuxuu ku leeyahay faqriga ah halkaasaan ka dhacay shalay halkaasay ugu dambeysay maalin hore waxaa laga leeyahay fursad baan ka faa'iideysan rabay ilaa hadda wuxuu kula share gareynayaa story aan macno lahayn storygaas macno ma sameynayso wax ku xisaabtan maahan muhiimadda waxay tahay maxaad ka faa'iiday maxaad resultiga ama natiijadaad gaartay waxay kugu soo kordhinaysa male waqtigaas kaga dhuminin waxa la rabo waa result oriented inaad noqotid qodobka 5 dadka faqriga ah waxay aaminsan yihiin in dhibaatada ugu weyn ay tahay lacagta inay keento halka taajiriinta ay aaminsan yihiin dhibaatada ugu weyn inay tahay lacag la'aanta tusaale oo kale wadamada dariska ah dalalka afrikaanka dadka adduunka meelaha ugu badan ee faqriga ka jiro waxa ka jiro dilitaan baa ka jirto waxa ka jiro dhibaato fara badan waxa ka jiro tuuganimo ka jiro laakiin wadamada tusaale ma jirto ilaa hadda qof faqri ah oo bangi dhacay ay raahday qof taajir ah oo bangiga dhacay bangiyada dhibaatada dadka